wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay webiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyay agagaarka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. webiga ayaa waxa uu ku fatahay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga magaaladaas iyadoona ay isaga barakaceen qoysaskii halkaas degnaa. webiga ayaa tuulooyinka uu ku fatahay waxaa ka mid ah Muriyaale, Buulo Bishaar, Goofey, Timire iyo Buur Dheere, Xanshoole iyo Buur Fuule. sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay intaas ku darayaan in laga cabsi qabo in webiga Shabeelle uu ku sii fataho deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. sawiro laga soo qaaday deegaanada uu saameeyay webiga Shabeelle ayaa muujinaya in fatahaadu ay tahay mid xoogan isla markaana biyuhu ku socdaan si xooli ah. maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay dadaal ku wadaan habka ugu samata bixi lahaayeen dadka danta yar ee saameynta uu ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle. dhawaan ayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay ku baaqday in dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga in ay gacan ka siiyaan ka hortagga fatahaada webiga Shabeelle uu saameyn ku yeelan karo dadka degan deegaanka. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV, magaalada Muqdisho.